Fanaanada caanka ah ee Farxiye Axmed Cadaawe loo garan og yahay Farxiye Fiska ayaa soo bandhigtay dhacdo aad u naxdin badan oo u geystay ninkeeda oo ah fanaan Mubaarak October. Farxiye waxay sheegtay in muddo 24 saac ah uu qol ugu xirneed isagoo u geystay garacistii ugu daraneed jirdil iyo bahdil aad u weyn. Waxay sheegtay inuu dharka ka siibay dhalooyin ku jeexjeexay ilaa heer uu ceejo ku qabtay awgeed ay lamiir doorsoontay islamarkaana isku kaadisay. Farxiye waxay fariin adag u dirtay maamulka iyo shacabka Somaliland iyadoo xasuusisay in muddo 25 sano ah ay fankeeda ugu adeegaysay waxay ugu yeertay qaranka Somaliland, maantana ay u baahan tahay in cadaalad loo sameeyo maadaama aan qarankan muddo dheer garab taagnaa, ayay tiri iyadoo sii hadlayso ayaa waxay tiri maanta waxaan codsanayaa inaan helo xuquuqdayda iyo cadaalad. Ugu dambayn Farxiye waxay caddaysay in kiiskan uu hadda yaallo maxkamadda iyadoo ballan qaaday inaanay marnaba ka hari doonin kiiskan isugu jirdilka iyo isku dayga dilka ah inta ay cadaaladda ka helayso. Ma jirto cid ka sarraysa sharciga, waana in falkaas lagu ciqaabaa cid kasta oo ka dambaysay.